habeenimada 22 Oktoobar ayuu wasiirka shidaalka iyo tamarta Jamhuuriyadda Soomaaliya soo gaaray magaalada madaxda Canada ee Ottawa isagoo ka yimid Toronto subaxnimadii 23-kana wuxuu kulamo foolka fool la yeeshay qaar ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka ee talada dalkan haya iyo kuwa mucaaradkaba isla galabtiina Mudane Cabdiwaaxid Cilmi Cumar Gonjeex wuxuu booqday wasaaradda arrimaha dibadda Canada halkaas oo lagu soo dhaweeyay si diiran lagana hadlay xiriirka labada dal xoojinta iskaashiga iyo xaaladda jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku sugan Canada isla habeenkii wasiirku wuxuu la kulmay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Ottawa wuxuu nooga warbixiyay xaalka uu haatan dalkeena ku sugan yahay iyo sida qof kasta oo Soomaaliya laga rabo inuu taageero dowladda ku meel gaarka midnimada qaran ee hogaaminteeda wado madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed qaybna ka qaato badbaadada dalkiisa Mudane Cabdiwaaxid Cilmi Cumar Gonjeex wuxuu dhageystay dareenka jaaliyadaha goobta ku sugnaayeen wuxuuna ka jawaabay su'aalo badan ku saabsanayeen siyaasadda iyo waxqabadka dowladdiisa wasiirku wuxuu aroortii ku laabtay Toronto halkaasna cashar sharaf ayaa ku soo dhaweeyeen ururka Somali Immigrant Aid ama ururka kaalmeynta muhaajiriinta Soomaaliyeed oo qabanqaabo iyo go'ldhig ugu jiray xafladda ururada bulshada Soomaaliyeed ee Toronto 24 Oktoobar ugu talagaleen Mudane Cabdiwaaxid Cilmi Gonjeex inay ku soo dhaweeyaan magaaladooda waxaa shirkaasna gudoominayay Marwo Faadumo Axmed Caalim Oreeji lugweynna ku lahaayeen Sultaan Cabdulqaadir Galbeeti X iyo Mudane Naasir Cabdi Baalle waxaana isla goobta ka muuqanayeen odayaal dhaqameedyo badan ku sugnaayeen magaalada Toronto tuurka 24 Oktoobar ayaa qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed Toronto wasiirka shidaalka iyo tamarta Jamhuuriyadda Soomaaliya qada sharaf ugu sameeyeen Karoo Restaurant أوه الحمد لله خافي عنها ما سوق خلتي اللي قاعد انا ادمكر بسوق
وقردها وحاسوها وقرد ريريو ديمي عرق وقردها وحاسوها وقرد ريريو وقديت تعوق مننا وقديت جايب مني وقديت تعوق مننا قم يا نكينا وقديت جايب مني وقديت تعوق مننا 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 والله بالله راه كل شيء habeenimadiina hotel holiday inns ayaa loogu dhigay xaflad si heer sare loo diyaariyey kana soo qayb galeen boqolaal Soomaali ah oo dal jaceylkooda ugu muujiyeen wasiirka si farxad iyo qurux badan ku jirto waxayna soo dhaweynayeen dadkani mudan Cabdiwaaxid Cilmi Cumar Goonjeex iyo dowladda midnimada qaran oo wakiilatay